ila waraadyo lagu kalsoon yahay ayaa xaqiijiyay in uu wili socdo shirka golaha wada tashiga qaran ee Muqdisho xilli ay baraha bulshada qabsadeen warar ku saabsan inuu burburay wararka sheegaya inuu shirka burburay waxba kama jiraan shirka wili waa socdaa aniga ayaana hadda jooga ayuu yiri ilwareed ku sugan shirka oo la hadlay xogta dhacdooyinka sidoo kale afayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimow ayaa qoraal uu soo dhigay Facebook ku xaqiijiyay in shirku uu wili socdo isaga oo ka digay wararka aan wanaagsanayn ee laga faafinayo xumaan hawarin shirka golaha wada tashiga qaran waxa uu galay maalinkii afaraad waxa socda doodo adag oo ay madaxdu ka yeelanayaan qodobo quseeya hufnaanta doorashooyinka iyo amniga in si qalbi furnaan ah loo doodo waxa ay dawo u tahay in xalka madambaysa laga gaaro qodobada lagu kala aragti duwan yahay ayuu yiri Maxamed Ibraahim Macalimow kulamada madaxdu waa kulamo guud iyo kuwa gaargaar ah dadka baraha bulshada xumaanta ku warinaya ee la wareegaya wararka dhiilada xambaarsan ee xaqiiqada ka fog waxa wanaagsanaan lahayd in dalka iyo dadkaba ay u rajeeyaan wax wanaagsan si kastaba waxa jirta cabsi ah in uu shirku burburi karo ayada oo qodobka la xiriira amniga uu yahay caqabada ugu adag ee haysata sii socoshada shirka madaxweyne goboleedyada Galmudug iyo Koonfur Galbeed Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor iyo Cabdi Casiis Laftigreen oo ku xiran farmaajo ayaa la sheegay inay diidan yihiin in amniga dalka lagu wareejiyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble madaxweyne Laftigreen ayaa la sheegay inuu yahay kan ugu xadjirsan marka ay noqoto arrinta amniga isaga oo ku hanjabaya in uu shirka ka baxayo haddii aan la joojin dooda amniga isaga oo gabi ahaanba ka soo horjeestay in arrinta amniga laga hadlo waxa hadda socdo kulamo gooni ah oo xal loogu raadinayo caqabada haysata shirka dhinaca kalena xildhibaan Axmed Macalin Fiqi ayaa ka hadlay xaaladda cakiran ee dalka gaar ahaan dooda taagan ee hareysay doorashooyinka iyo shirka u socda xubnaha golaha wada tashiga qaran ee dalka Fiqi ayaa weerar afka waxa uu ku qaaday madaxweynihii hore ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo uu ku eedeeyay inuu ciidamada qaranka u adeegsaday dana gaar ah iyo in lagu weeraro siyaasiyiinta wasiirkii hore ee amniga Galmudug ayaa soo jeediyay in la helo marka ay noqoto amniga kuwaas oo kala ah in ciidanka la hoos geeyo xukuumadda Rooble iyo taliyayaal xilkas ah waxa loo baahan yahay in ciidamada qaranka waqtigan xasaasiga ah la hoos geeyo xukuumadda xilgaarsiinta iyo taliyayaal xilkas ah ayuu Axmed Macalin Fiqi yiri arrinta amniga ayaa ka mid ah qodobada wali la isku mari la'yahay shirka golaha wada tashiga qaran oo galay maalintii afaraad kaas oo ka socda teendhada afisyooni ee magaalada Muqdisho haddii aad maqli jirtay dawlado ay ka mid tahay Iiraan oo loo diidan yahay inay yeeshaan hubka nuclear-ka taasi macnaheedu ma aha nacayb gaar ah ee waa in hubkaasi uusan gelin gacan aan mas'uul ahayn oo sababta in si xun loo adeegsado maanta farmaajihii ciidamada qalabka sida uu adeegsaday dawlad goboleedyo badan weerarkii guriga siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame weerarkii baarlamaanka ee sanadkii 2018 ka hortagii banaanbaxa iyo weerarkii labadii madaxweyne hotel ay deganaayeen dagaalkii muddo kororsiga afgambigii dhicisoobay ee 27 December ee 2021 iyo asagoo wali ku jira abaabul ciidan in ciidamadii qaranku ay galeen gacan aan mas'uul ahayn waa arrin cad loona baahan yahay in ciidamada qaranka waqtigan xasaasiga ah la hoos geeyo xukuumadda xilgaarsiinta ah iyo taliyayaal xilkas ah ayuu hadalkiisu ku soo gabagabeeyay Axmed Macalin Fiqi wasiirkii hore ee amniga maamulka Galmudug si kastaba ha ahaatee waxa wili Muqdisho ka socda shirka golaha wada tashiga qaran oo uu hogaaminayo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble isla markaana ay ka qayb galayaan shanta madaxweyne goboleed iyo sidoo kale gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir waxaana si weyn la isugu hayaa qodobo xasaasi ah oo ka mid yahay qodobka amniga oo taageerayaasha farmaajo ee ku sugan shirka ay diidan yihiin in amniga lagu wareejiyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble